wuxuuna diyaar u yahay Soomaaliya oo dhan meesha jawaab joog inuu ka xoreeyo ma aha dhulkaan uu dhashay ma aha waa nin qaran waay waa taliye qaran taliye ku soo dhawow cadcaday ku soo dhawow cadcaday waxa ku soo dhawaataa deegaankan annagu aan ka soo jeedno oo maantay si farxad leh noogu soo wareejiyay suugadan waxay dhaheen wixii yar haday sheega waa geela ugu weyn la keenay ariya meeshaas dhooban ariga waa kaas waa geel waa ari ku soo dhawow ciidamada qarankana waxaan leeyahay ku soo dhawaada ha isdeenina ciidan waa soo daahday maahane anaga dhamaan la yiraahdaa waa soo daahan afgaalo dhamaan la yiraahdaa waa imaahayna lak haddaan soo daahno marka ogaada hadda ka bacdina waxaad arki doontiin maanta waxaan keennay wax ka weynaan soo wadnaa insha Allah waadna ogaa doontaan ku soo dhawaada deegaanka waxaana kaloon sheegayaa annaga waxaan qaadannay amarkii oo madaxweynuhu faray Soomaaliya oo ku yiri shabaab ha laga saaro waddanka Soomaaliya qawaarijiinta ogaada madaxweyneyna xasan sheekh maxamuud habeen maalin wuxuu soo jeedaan shabaab waddanka laga bixiyo annaguna sidoo kale waxaan u taagannahay annagoo u dhagalna deegaankan kan haddaan xoreyna kan ku xigaan aadno oo nugu dhow oo galmudug oo galguduud waxaan kaloo aadaynaa meel kastoo shabaab joogna waa tegaynaa haddii Ilaahay na gaarsiiyo dadkan diyaar u yihiin haddii Ilaahay na gaarsiiyo insha Allah ogaada waxaan salaamayaa bahda heer cadcaday dhammaan dhalinyaro iyo culumo akhyaar barbaar iyo haweensay u leeyihiin iyo ragga ciidamada ahoo qoryohoori la soo baxay dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu gaar ahaan waxaan rabaa inaan u salaamo xaajiga oo xaaji dool yuusuf maxamed foodey la yidhaaho asaguna odayaasha deegaanka ninka ugu horreeya marna siyaasigoodiiya waa mahadsantihiin salaan kadib waxaan rabaa inaan la wadaago kelimaad kooban oo ah reer cadcaday bulshadeena kala duwan waxaad ka turjunteen si la yaab leh oo aan la filaynayn oo qalbiyadiinna waxa ku jira ayaad noo fasirteen adinkoon afka ka sheegina qaabka aad u fasirteen waxay ahayd ayadoon laydiin soo ergeyno waxaasaa laydinka rabaa laydan dhihin inaad intaad tashataan salaantaad noogu imaan laheedeen adinku aad ka dhigtaan geel iyo ari iyo sharaf iyo soo dhoweynyo tahniyad iyo calamo iyo yacnii mahad celin intaba intaas waxaad u gelaysiin waa qarannimo jacayl waa dawladnimo jacayl waana wanaagga iyo sharafka waxaana intaas idinkugu daraahoon ogahay maalintii halgankaanu bilowday oo gobolkan qayb ka mid ah 100 kiiloomitirka xagga 150 kiiloomitirka xagga la soo socday xoolihii inta laga wadayaana la kugu keenay aan ognahay on marqaatigeeda ah waxaana la kugu keenay cadale waxaan xasuustaa iyadoo wadaan odayaashuna lagu keenay cali guduud waxaana la kugu keenay nuur dugle waxaana lagu keenay yani ayu shay kasta waxaan dareemaynaa marka inaysan gacanti horeysa aysan ahayna ninka ogaa aniga aadan idinkaga mahad celinaa waxaan leeyahay saaxiibadayda saraakiisha iyo ciidanka aan hor joogo halkaan ku sugan waa la sii soconayaa waxaad arkaysaan waa dadkii shacabka reer cadcaday isma arag weli oo isma warsan arrimahan hadda ay samaynayaan waa waxay ku fikireen lama farin ayagaa isa soo faray farxadoodii ay ka turjumayaan marka waxaan lahaa waaba guuri doontaan talow maxaa la sheegi doonaa saaxiibadaha dhow maxay dhihi doonaan marka waxaan sheeganaa aan saaxiib marka waana gudbaynaa cod walba waxa iska laga rabaa horaan u gudbaynaa saas ayna noo balama